bismillaahi raxmaani raxiim idlahaantiin baddaawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan daafaha dunida waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo weliba barnaamijkii dhacdooyinka la yaabka lahaa ee telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo toddobaadkiiba aad hal mar ka daawataan shaashadaha telefishanka toddobaadkan daawadayaal barnaamijka waxaan idinku hayaa xubno idin xiiso gelin doona oo aad markaasi la dhici doontaan xubnahaas ayaa qadarka nus saac ah ee soo socda aad barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale aad ku dhugan doontaan ee daawadayaal waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada oo nagula raaxaysta aan soo qabta dhacdada ugu horeysiya waliba barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kale iyo toddobaadkani waxaynu ku soo qaadan doonaa dhacdo ka dhacday wadankaasi New Zealand gabadh wadankaasi u dhalatay ayaa soo bandhigaysa dhacdo ah in iyadoo xiran kabaha dabaasha lagu galo ee afkoodu dhaadheer yahay inay ka dulboodo biro taxan masaafo gaadhaysa 100 mitir gabadhan ayaa hadaba waxa lagu rabaa ama laga rabaa inay waqti aad u yar ay kaga dulboodo birahaasi waqtiga loo qabtay ayaa waxay tahay 22.5 ilbiriqsi gudahood inay 100 mitir biraha taxan ay kaga dulboodo iyadoo kabahaasi xiran daawadayaal xubintani waa xubinta ugu horeysa ee barnaamijkeena dhacdooyinka bal waxaynu eegi doonaa gabadhan inay guuleysato iyo in kale aynu eegno dhacdada ay gabadhani soo bandhigaysa waa dhacdo aan hore nooceeda looga arag World Genius Recordka waxay doonaysaa inay kaga qayb qaadato dhacdadani oo ah in iyadoo xiran kabaha lagu dabaasho ee dhaadheer inay ka dulboodo birahani ayaa waxay taxan yihiin masaafo gaadhaysa 100 mitir haddaba gabadhan ayaa waxa laga rabaa iyadoo birahan ka dulboodboodaysa iyadoo kabahani xiran in ay ku orado waqti gaadhaya 22.5 second bal haddaba waxaynu eegi doonaa isku dayga gabadhani iyo inay guuleysato Radio 2 1 go. It's a great start. It's a great start. Jeez, I'm going to have to put my foot down. Oh, you're going to destroy it at this speed, surely. Oh, I'm having to give it 110 to keep up. Brilliant. Oh, there's seconds off it. There's got to be seconds off it. Does New Zealand have another record? The record you were going for was 22.35 seconds over 100 metres. You've just done it in flippers in 19.278 gabadhan ayaa daawadayaal waxay ku guuleysatay World Genius Recordka ay ku gashay in iyadoo xiran kabahan dhaadheer ee loogu talagalay dabaasha in ay birahan kaga dulboodo oo taxnaa masaafo gaadhaya 100 mitir ilbiriqsiga gaadhaya 19.7 ilbiriqsi sidaas ayaa ay gabadhani ku muuteysatay inay hesho abaalmarinta uu bixiyo World Genius Recordku slip that on you and now officially a Guinness World Record holder for running 100 meters in flippers. Awesome. aynu intaasi kaga soo gudubna dhacdada ugu horeysa iyo waliba barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale iyo toddobaadkani dhacdada labaad ee aan idii hayo ayaa waxay tahay nin doonaya isna inuu buugan lagu kaydiyo dadka la yimaada waxyaabaha cajaa'ibka badan inuu ku soo bandhigo dhacdo ah inuu sameeyo jimicsigaasi ayaa hadaba waxa uu rabaa inuu ku dul sameeyo bir ay gabadhina dusha ka dul saaran tahay ninkan ayaa waxa laga rabaa muddo 1 minute gudaheed inuu sameeyo jimicsi gaadhaya 111 jeer bal waxaynu eegi doonaa isku dayga ninkani inuu guuleysto iyo in kale inuu 111 kaasi jeer ee loo qabto inuu sameeyo inuu ka hooseysiyo iyo inuu dhaafiyo labadaba dhacdada labaad iyo barnaamijkeena dhacdooyinkana aynu jaleecna daawadayaal dhacdadan oo ka dhacday wadankaasi New Zealand ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa daawadayaal ninkan aad arkaysaan ayaa waxa uu doonayaa inuu soo bandhigo dhacdo cusub dhacdadani ayaa waxay tahay in uu soo bandhigo dhacdo ah jimicsi aan hore looga arag amaba looga dhigin dunida amaba aan laga diiwaan gelin buugan lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha cajiibka badan dhacdadani ayaa waxay tahay sidaad arkaysaan daawadayaal in isagoo jiifa dabadeed birtan aad arkaysaan daawadayaal ee ay gabadhani korka ka saaran tahay in uu jimicsi ku sameeyo haddaba World Genius Recordka ayaa waxa uu ka rabaa muddo 1 minute gudaheed
in uu jimicsigan ay gabadhani birtan dhakada ka saaran tahay uu ku sameeyo 111 xabo ama 111 jeer bal waxaynu eegi doonaa muddadaasi halka minid ah in uu intaasi loo qabtay ku sameeyo iyo in kale. In case you're wondering who's on top, it's model Kieran Ames. 15 seconds. You're right there. Quite a smile she's got, isn't it? waxaad arkaysaan oo si fiican ula socotaan in uu weli wado dhacdadan cajiibka badan bal aynu eegno in uu guulaysto iyo in uu guul daraysto labadaba. I'm going to need to go to slow motion to check it, and then I'll come back to you with a number. We're going to the replay, we've got to count it. And here's the slow-mo replay. Ladies and gentlemen, the official record was held by a Spaniard by the name of Fernando Salga at 111 bench presses in 1 minute. The good news is Big Steve and Kieran is coming at 121, the world record goes to New Zealand. He's done it. dhacdadan ka dhacday waddankaasi New Zealand ee uu ninkani soo bandhigayay ee ahayd dhacdo aan hore looga dhigin buugan lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha cajiibka badan ayaa uu ninkani ku guulaystay waxa laga rabay muddo 1 minida gudaheed inuu 111 xabadood oo jimicsi ah in uu ku sameeyo birtan ay gabadhani dhakada ka saarnayd laakiinse isagu waxa uu gaarsiiyay oo uu kormariyay 120 xabo saas ayaa uu ku galay buuga lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha cajiibka badan. New Guinness World Record. Congratulations, pal. Thank you. Yeah, you started grinding to a halt after about 45 seconds. I couldn't believe it, yeah. I thought I'd be going for the full minute, but... dhacdadan markan daawadayaal idin soo qabanaya waa dhacdo xiiso badan waxaynu ku soo qaadan doonaa 2 nin oo World Guinness Recordka doonaya inay kaga qayb qaataan oo lagaga diiwaan galiyo dhacdo ah in midkoodna intuu cunto soo tuuro ka kalena uu wajigiisa ku qabto isagoo aan adeegsanaynin gacmihiisa haddaba labadan nin sharciyada ama qodobada laga rabo ayaa waxay yihiin muddo 1 minida gudaheed in uu ninkan doonayo inuu wajigiisa cuntooyinka ku qabto cuntooyin gaaraya 27 xabo bal dhacdadan cajiibka badan ayaynu eegi doonaa ee daawasho wanaagsan. dhacdadan waxaynu ku soo qaadan doonaa 2 nin oo soo bandhigaya in midkoodna uu soo tuuro daawadayaal cuntadan aad arkaysaan ka kalena uu wajigiisa uu ku qabto haddaba waxaa loo tirin doonaa inta xabadood ee uu wajigiisa ninkani ku qabto waxaa laga rabaa muddo 1 minid ah in uu wajigiisa ku qabto cunto gaadhaysa 27 xabadood bal waxaynu eegi doonaa isku dayga labada nin ee uu midna tuurayo midna wajigiisa ku qabanayo haddii aanu wajigiisa cuntadan ku qaban loo tirin maayo laakiinse haddii uu ku qabto ayuunbaa loo tirinayaa bal isku dayga labada nin iyo inay guulaystaan ayaynu eegi doonaa. 3, 2, 1, go. Good boy. Good boy. That's a boy. Keep going, mate. Oh, that's good, buddy. That's good. Hey, son, down not so hard. Oh, ouch. Good boy. sidaad arkaysaan weli waxay ku guda jiraan in cuntadan midkoodna soo tuuro ka kalena uu wajigiisa ku qabto waxaad arkaysaan daawadayaal ninkan in wajigiisii gebi ahaantiiba ay cunta qarisay bal aynu eegno gunaanadka.
You're both looking lovely. Yeah, very nice. The record you were going for stood at 27 custard pies in the face. Yep. I've done 2 slow motion recounts, and you managed to catch 36 custard pies in the face. labada nin ayaa daawadayaal waxay ku guuleysteen oo ay buugga lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha cajiibka badan ku galeen dhacdadan ay cuntooyinka isku soo tuurayeen waxaana laga rabay muddo 1 minute gudaheed in ninka wajigan uu ku tuuro oo uu ku qabto 27 xabadood oo kamid ah cuntooyinkii halkan taxna laakiinse waa ay ka badiyeen oo waxa ay gaarsiiyeen in ninkani uu wajigiisa ku qabto 36 xabadood isagoo ka kalena soo tuurayay sidaas ayaa ay ku galeen oo lagaga diiwaan galiyay buugga lagu qoro dadka la yimaada dhacdooyinka cajiibka badan. Oh, brilliant. Awesome. Well done, buddy. Been a pleasure. nin u dhashay wadankaasi Hindiya ayaa isna soo bandhigay dhacdo cajiib badan ninkan ayaa waxa uu rabaa in uu keeno dhacdo cusub dhacdadani ayaa waxay tahay inuu madaxiisa ku jabiyo kuraasta suuliyada lagu fadhiisto dhacdadan ayaa hore waxa iskugu soo dayay nin u dhashay wadankaasi Mareykanka laakiinse ninkaasi qodobadii iyo shuruudihii lagu xidhay waa uu bixin waayay oo waxa uu ku guuldareystay inuu World Genius Record-ka ku galo bal hadaba ninkan u dhashay wadankaasi Hindiya waxaynu jaleeci doonaa inuu la mid noqdo ninkaasi hore iyo waliba inuu himiladiisan ka dhameeyo oo isagu noqdo ninka ku guuleysta inuu helo abaalmarinta dhacdadan lagu mutaysanayo bal dhacdada ninkan u dhashay wadankaasi Hindiya aynu eegno dhacdadan daawadayaal waxaynu ku eegaynaa ninkan oo u dhashay wadankaasi Hindiya waxa uu rabaa inuu madaxiisa ku jabiyo kuraasta suuliyada ee lagu fadhiisto dhacdadan ayaa daawadayaal waxa hore iskugu dayay nin u dhashay wadankaasi Mareykanka kaasi oo ku guuldareystay in qadarkii loo qabtay in uu madaxiisa ku jabiyo in uu ku jabin waayo bal hadaba ninkan u dhashay wadankaasi Hindiya ayaa isagu raba inuu isku daygani kaga rumeeyo oo uu ku guuleysto in uu madaxiisa ku jabiyo qadar aad u badan oo kamid ah kuraasta suuliyada lagu fadhiisto ninkan ayaa waxa laga rabaa muddo 1 minute gudaheed in uu madaxiisa ku jabiyo qadar gaaraya 46 xabadood oo kuraasta suuliyada yaala ee lagu fadhiisto amaba kuwa suuliyada lagu galo bal waxaynu eegi doonaa isku daygiisan muddadaasi 1 minute inuu ku guuleysto iyo in kale 3, 2, 1, go! Destroying them! Oh, he's really stumped them. Oh, 30 seconds. it's got a smart. It's got a smart. wali waxaynu arkaynaa oo aad la socotaan inuu madaxiisa ku jabinayo kuraastani bal aynu eegno inuu guuleysto iyo in kale What an effort! What an effort! Broken are being counted. It's a nervous wait for Jeffrey and his fans. He's like, mighty effort, pal. Mighty effort. Awesome effort. How's the bonks? Not too bad. Not too bad. You didn't have any claret. I thought you might have opened up. Anyhow, Chris. Yep, I've done the count, and the record stood at 46 in 60 seconds. Yeah. You have just managed to break in half 24 toilet seats in 60 seconds. 24. 24. Well, big round. That was fantastic. What an effort. What an effort. ninkan u dhashay wadankaasi Hindiya kuma uu guuleysan oo waxa uu la mid noqday ninkii hore ee u dhashay wadankaasi Mareykanka waxa laga rabay muddo 1 minute gudaheed inuu madaxiisa ku jabiyo 46 xabadood oo ah kuraastan suuliyada yaala ee lagu fadhiisto laakiinse waxa uu isagu madaxiisa ku jabiyay 24 xabadood muddo 1 minute gudaheed sidaas ayaa uu ku noqday
mid guuldaraysta oo la mid noqda ninkii hore ee isaguna isku dayay dhacdadani. aynu intaasi dhacdadaasi kaga nimaadno daawadayaal. si fiican ayaad u arkayseen inuu isna ku guuldaraystay oo uu noqon waayay nin hela abaalmarinta World Genius Recordka sidii ninkii hore ee isna ugu guuldaraystay dhacdadani. dhacdadan markan idin soo qabanayo waa dhacdo ka dhacday wadankaasi New Zealand. dhacdadan ayaa waxa soo bandhigay nin u dhashay wadankaasi. waxa uu rabaa inuu isna World Genius Recordka ku soo kordhiyo mihnad cusub oo ah in uu tuuro qasaaladaha dharka lagu maydho masaafo aad u dheer. ninkan ayaa hadaba waxa laga rabaa ugu yaraan inuu qasaaladahaasi uu tuurayo uu gaarsiiyo 336 centimeter. bal dhacdadan iyo ninkan u dhashay wadankaasi New Zealand aynu jaleeci doonaa daawadayaal. ninkan xoog badan ee aad arkaysaan iyo dhacdadan oo ka dhacday wadankaasi New Zealand ayaynu ku eegi doonaa dhacdadan daawadayaal. ninkani ayaa waxa uu rabaa inuu soo bandhigo amaba uu keeno dhacdadan oo ah in uu tuuro qasaaladaha dharka lagu maydho masaafo dheer. ninkan hadaba waxa laga rabaa oo World Genius Recordku ka rabaa in uu qasaaladahani gaarsiiyo masaafo gaadhaysa 336 centimeter. bal waxaynu eegi doonaa qasaaladaha uu ninkani tuurayo in masaafadaasi loo qabtay uu gaarsiiyo iyo in kale. Very focused, the big fella. I love it. I love the theatrics of the strong men. Let's go, big fella. Look, he just hoists it up. Let's go. 5 metres. Just an unlucky fall. Yeah. It looks good, but Jono wants another go. Big fella slamming himself in the face a couple of times just to get G'd up. That's what they do, these big men, the strong men. Throw it up there. Let's go, Jono. Oh, it was just a warmer. It was just a warmer. Come on, mate, see if you can go off the end of the platform here. Let's go, mate. Let's go. Come on. He needs a bit of encouragement. Look at the big fella. Throw it up. Look out, mate. He could just get it off course. Brilliant. Brilliant. Well done, big fella. That's the mark there. Shall I grab the end of the tape for you, mate? Great if you could, thank you. Rightio, rightio. The official measure, the official measure. We know it's a record, but just how big is it? While our judge does his duty, let's see that throwing action again. I reckon he's just gone over 4. Okay, so we'll go to the official word from Chris. Give us the measurement. All right, Jono, the record you were going for today stood at 336 centimetres. You've just thrown a washing machine 401.5 centimetres for a new Guinness World Record. dhacdadan iyo ninkan iyo wadankaasi New Zealand ayaynu joognayee ninkani waxa uu ku guulaystay oo World Genius Recordka ku galay in uu qasaaladahan dharka lagu maydho tuuro 401.5 centimeter in uu tuuro qasaaladahani iyagu aad ka u cusla. sidaasna waxa uu kaga mid noqday World Genius Recordka waxaanu helay abaalmarinta World Genius Recordku uu bixiyo. Well, there you have it. I mean, clearly when it comes to strength, New Zealand's well up on Australia.